asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo ay joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkii gaarka ah oo aynu ku eegeynay xaaladda maxamed soomaali islamarkaasina aynu kusoo bandhigaynay xisaabaadka ay walaalaha soomaaliyeed ay kusoo sadaqaysteen maxamed axmed jaylaani daawadayaal waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa aniga iyo aabe axmed jaylaani fanaanada weyn farxiyo kabayare oo kaalin weyn ka qaadatay ololaha lagu gargaarayo ama lagu caawinayo maxamed soomaali. waxaan leenahay jir oo joog fanaanada weyn farxiyo kabayare. waqtigu aada isaga yar hadduu alla idmo daawadayaal waxaynu gudagelaynaa xisaabaadkii walaalaha soomaaliyeed ay soo direen. waxaanu ku hormaraynaa xawaalada dahabshiil. qofka ugu horeeya waa bashiir axmed yuusuf. waxa uu ku nool yahay maraykanka, gaar ahaan waxa uu ka mid yahay tagsiilayaasha ka shaqaysta maraykanka. waxa uu wakiil ka yahay gruub tagsiilayaal ah, waxayna dhammaantood soo direen tagsiilayaasha uu bashiir wakiilka ka yahay lacag dhan 2,500 oo doolar. bashiir ayay soo wakiisheen, waa darawaliinta tagaasida eeraboorka ee soomaalida. waxa ayna soo direen 2,500 oo doolar. waxaan leenahay waa mahadsantihiin. qofka kaloo xiga waxa uu noqonayaa yuusuf cali xuseen. sidoo kale waxaa soo wakiishay oo lacagtan kusoo wakiishay gruubka la yiraahdo women islam. waa women islam, waxa ayna ku nool yihiin UK. waxayna soo direen lacag dhan 1,022 doolar. waxayna soo wakiisheen women islam yuusuf cali xuseen. lacagtiina waan helnay, waa mahadsantihiin. sidoo kale qofka kale xiga waxa uu noqonayaa maryan yaasiin xaaji. sidoo kale waxaa soo wakiishay gruub walaala oo gabdho ah. waxa ayna soo direen lacag dhan 800 oo doolar. waxayna ku nool yihiin oo ay kasoo direen muqdisho soomaaliya. qofka kaloo xiga waxa uu noqonayaa daawadayaal aamine cige axmed. waxa ay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 556 doolar. waxa ayna ku nooshahay UK. qofka kale waxa uu noqonayaa daawadayaal sahara sheekh dirir. waxa ay ku nooshahay kismaayo soomaaliya. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 800 oo doolar. qofka kale daawadayaal waxa uu noqonayaa safiya xasan geedi. waxa ay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 200 oo doolar. waxa ayna ku nooshahay Norway. qofka kale daawadayaal waxa uu noqonayaa hadduu alla idmo kaltuun xasan rabilla. waxa ay soo dirtay 30 doolar. waxa ayna ku nooshahay UK. qofka kale daawadayaal wuxuu noqonayaa xafsa axmed lohos. waxa ay soo dirtay 50 doolar. waxa ayna ku nooshahay USA ama Mareykanka. qofka kale waxa uu noqonayaa xaawo cabdi jimcaale. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 150 doolar. waxa ayna ku nooshahay Sweden. qofka kale daawadayaal waxa uu noqonayaa maryama maxamed cusmaan. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 200 oo doolar. waxa ayna ku nooshahay Norway. maryan maxamed cismaan 200 oo doolar ayay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay. waxa ayna ku nooshahay Norway. qofka kale daawadayaal waxa uu noqonayaa waa maxamed siidow cali. waxa uu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay 50 doolar. waxa uuna ku nool yahay South Africa. qofka kale waxa uu noqonayaa daawadayaal waa khadiija cabduqaadir yoonis. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 150 doolar. waxa ayna ku nooshahay Norway. qofka kale daawadayaal wuxuu noqonayaa waa maxamed cabdi aadani. waxa uu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay 100 doolar. waxa uuna ku nool yahay Mareykanka. qofka kale daawadayaal wuxuu noqonayaa muniira saciid jaamac. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 100 doolar. waxa ayna ku nooshahay UK. qofka kale daawadayaal waxa uu noqonayaa barni xaaji aadan. waa barni xaaji aadan. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 100 doolar. waxa ayna ku nooshahay Norway. qofka kale daawadayaal waxa uu noqonayaa waa cusmaan nuur maxamed. waxa uu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay 155 doolar. waxa uuna ku nool yahay UK ama London ama Ingiriiska. qofka kale daawadayaal waxa uu noqonayaa waa saciida xuseen wardheere.
waxa ay ku nooshahay UK, waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $50. waa walaalihii xawaalada dahabshiil lacagaha soo diray shalay iyo maanta. waxaan dabcan ugu talagalnay inaan gruubkiiba hal mar aan u duceyno si waqtigaan u beeqaamino. haddana gruubka walaalaha ee maxamed soomaali lacagaha kusoo sadaqaystay ee magacyadooda iyo meelaha ay joogaan iyo lacagaha ay soo direen aan sheegay, waxaan rabaa inaan aabe axmed jeelaani u gudbiyo si uu walaalahaas guud ahaan ugu duceeyo, isla markaasina uu u sheego in lacagtoodii uu helay. haye axmed. jazaaka allah walaalkay axmed abuukar azaari kheyr allah ku siiyo. runtii horta walaalahayga soomaali weyn waad iga farxiseen, ilaahay aadinka farxiyo, jazaaka allah kheyr. intii maxamed soomaali oo maaragtay soo caawisay ama u oysay ama usoo duceysay, waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay aadin barakeeyo, ilaahay owlaada allah maaragtay idin xafido, ilaahay owlaadiina baar allah idinka dhigo. qofkii ubad haysan ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay ubad taam oo caafimaad leh ilaahay siiyo insha allah. lacagtii aad igu soo sadaqaysateen wiilkiina maxamed soomaali aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, waana maaragtay iga farxiseen. haddana lacagtii waa helay. maxay ahayd walaalkay azaarin weli shaqeynayaa, ilaahay asna ajri xasanaad allah ka siiyo. intii kasoo qayb qaadatay maxamed soomaali uu usoo danqatay, ilaahay waxaan ugu baryaa waxay ku farxaan inuu ilaahay tusiyo, aakhiradoodana inuu ilaahay u tuusiyo. ilaahay maaragtay meel isaka fillayna igana ilaahay inuu kasoo siiyo. jazaaka allah kheyr, jazaaka allah kheyr. waa idin soo duceyna biidni illahi kariim insha allah. waa tahay walaalaha soomaaliyeed ee lacagaha kusoo sadaqaystay brother maxamed soomaali, waxaan leenahay ducadii aabihiisu idin duceeyey iyo ducada maxamed soomaali iyo ducada muslimiinta kale allaha idin aqbalo, jasadiisana allaha idin siiyo. si gaara waxaan ugu mahad celinaynaa walaalaha minnesota lacagta kasoo diray ee darawaliinta tagaasida ah. sidoo kale women islam ayakuna aad ayaan ugu mahad celinaynaa. maryan oo iyaduna ka mid ah siyaasiyiinta da-da yar ee muqdisho lacagta kasoo dirtayna ayaduna si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa oo isku xilqaantay, iyo guud ahaan walaalaha kale ee iyakuna lacagaha soo diray ee sida aadka isugu xilqaamay. mar walba idima iloobi doono, taariikhda ayaana idin xusi doontaa hadduu alla idmo. si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa fanaanada farxiyo kabayare oo iyaduna ololo ballaaran ugu jirta siduu maxamed soomaali mar kale lugihiisa uu dib ugu istaagi lahaa. intaas waa xawaalada dahabshiil walaalaha lacagaha kusoo diray. haddana xawaalada amal ayaanu gudageli doonaa. qofka ugu horeeya waxa uu noqonayaa fawsiya maxamed nuur, waxa ay ku nooshahay australia melbourne, waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $100. qofka labaad wuxuu noqonayaa fawsi deeq yuusuf, waxa uu ku nool yahay Sydney Australia, wuxuu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay $100. qofka kale waxa uu noqonayaa nasro maxamed kulmiye, waxa ay ku nooshahay Sweden, waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $50. qofka kale waxa uu noqonayaa waa luul jaamac faarax, oo lacagtan ay soo dirtay waa $100, waxaana la soo diray gabar kale oo iyadu isku meel ay ku nool yihiin Sweden. waa luul iyo gabar kale oo ay isku meel ku nool yihiin, waxay soo direen $100, waxayna kasoo direen Stockholm Sweden. qofka kale waxa uu noqonayaa faaisa cabdulaahi ibraahim, waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $100, waxa ayna ku nooshahay Australia. qofka kale waxa uu noqonayaa waa xaawo ismaaciil gurey, waa xaawo ismaaciil, waxa ay ku nooshahay Mareykanka, waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $50. walaalahaas soo diray lacagta oo amal kusoo diray, maxaad ugu duceyleeda iyakuna? jazaaka allah kheyr walaalahay, waxaan leeyahay ilaahay idinkan ka badankiisa allah idin soo geliyo, sidaadna u farxisan allah idinka farxiyo biidni illahi kariim insha allah. qof walba maxamed soo caawiyey oo wax kusoo sadaqaystay, ilaahay waxaan ugu baryaynaa muraad walba uu leeyahay inuu ilaahay muraadkiisa u sahlo, ilaahay meeshood farxad inuu ilaahay ku siiyo. jazaaka allah kheyr. waa tahay waxaan soo gudagalnay oo aan isku dari doonaa xawaaladahan waa taaj, amaana, muna iyo mustaqbal. xawaaladahaas waan isku dari doonaa, dad koobanaa lacago kusoo diray si markaas aan isku raacino waqtigan aynu u bayqaamino. xawaalada taaj waxaa lacagtan kusoo diray waa ayaan cabdi cabdulaahi, waxay ku nooshahay Norway, waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $200. xawaalada amaana waxaa lacagtan kusoo diray saada cabdulaahi cali, waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $100, waxayna ku nooshahay Mareykanka. xawaalada muna waxaa lacagtan kusoo diray sahre askar faarax,
waxay ku nooshahay turkiga waxayna maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $100. xawaalada mustaqbal waxaa lacagtan kusoo diray raaxo maxamed waxayna ku nooshahay maraykanka waxayna maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $100. qofkan kale waxa uu magaciisa noqonayaa waa naciima cabdi wehliye waxa ay ku nooshahay sacuudi arabiya waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $125. walaalahan xawaalada taaj mustaqbal muna iyo amaana maxaad ugu ducey lahayd jazaaka allah khayr walaalahay waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo ilaahay idinkana ajri xasanaad allah idinka siiyo wiilkiina waad usoo gurmateen waa soo caawiseen sidaad usoo caawiseen idinkana allah idin caawiyo waxaad ku faraxdiin allah idin siiyo biidni illaahi kariim insha allah qof walba oo maxamed soo caawiyey ilaahay waxaan ugu baryaynaa aniga wiilkeyga inuu ilaahay muraad walba u leeyahay inuu ilaahay muraadkooda taama u dhigo insha allah waa tahay allah u aqbalo walaalaha soomaaliyeed ducada aabe axmed jeylaani maxamed nuur waxaan haddan soo gudagalnay xawaalada ladan express walaalaha lacagaha kusoo diray muddo fog iyo haddaba labaduba waxay kala noqonayaan waa falastiin xasan tabaarag waa falastiin xasan tabaarag waxay ku nooshahay sacuudiga gaar ahaan jidda waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $250. qofka kale waxa uu noqonayaa nadiifo xasan diinle waa nadiifo xasan diinle waxa ay ku nooshahay london waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $100. qofka kale waxa uu noqonayaa jeylaani shariif waa jeylaani shariif waxa uu ku nool yahay london wuxuu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay $100. walaalahaas maxaad ugu ducey lahayd jazaaka allah khayr walaalahay waxaan leeyahay allah idin barakeeyo idinkana ilaahay ajri xasanaad allah idinka siiyo sidaad maxamed wiilkiina aad usoo caawiseen allah idinku caawiyo ilaahayna waxaan idinka baryaynaa waxaad ku faraxdaan aad ku barwaaqdaan inuu ilaahay gacmiina soo geliyo insha allah ilaahay ubadkeena allah nuu badbaadiyo allah nin la koriyo insha allah waa hagaag daawadayaal intaas aynu kusoo gebangabeyneynaa barnaamijkii guud ahaan lacagaha aynu hayno maanta oo taariikhdu tahay 10 bisha koowaad sanada 2016 waxa ay gaaraysaa $8,066 waa lacagihii aan shalay iyo maanta aan soo aruurinay oo walaalaha Soomaaliyeed aynu ka soo aruurinay waa lacag dhan $8,066 waqtigu aad inoogu yar ayaanu usoo koobnay si aynu uga faa'iideysano timeka isla markaasina aabuhu caawa shiftiga maxamed Soomaali asaga ayaa iska leh sidaas ayaynu waqtiga usoo beeqaaminay daawadayaal la socda waxaan ugu talagalnay si walaalaha Soomaaliyeed u ogaadaan xaaladda maxamed Soomaali isla markaasina u noqoto transparent wax ah lacagii aan soo aruurinay shalay iyo maanta waa $8,066 waatana waa lacagtaad u jeedaan waa $8,066 waxaan ku wareejinayaa aabe axmed jeelaani si aad u hubsataan inuu helay ama uu gudoomay lacagtii aad usoo dirteen walaalaha Soomaaliyeed axmed jeelaani waatana lacagtii dabcan adaa soo aruuri isla markaana waxaan rabnaa inaad u cadeyso daawadayaasha iyo walaalaha lacagaha soo diray iyo kuwii hore usoo diray iyo kuwa soo diri doona ee wadada kusoo jira inaad hesho lacagtii maanta iyo shalay aan soo aruurinay oo $8,066 ah jazaaka allah khayr walaalahay khayr allah idin siiyo lacagtii shalay maanta aan soo aruurinay oo qaasatan walaalkay axmed abuukar azaari garab weyn aad iyo aad ugu siiyey in maarto ila raaco xawaaladaha leen waa dareemi kartay qof cunuga xanuunsanaan ahay haddana waxaan aad xoog u saaray inaan lacagii gacanteeda aan kusoo qaato walaalkayna inuu garab igu siiyey jazaaka allah khayr asina ilaahay barakeeyo ilaahay wuxuu ku farxa laa siiyo marka insha allah walaalahay lacagtii waa kana waa heystaa ilaahay idinkan maaragtay badinkiisa allah idin soo geliyo wiilkeenu idin soo duceeyay anagana waa idin duceynay ducadeena ilaahay aqbal allah idinka dhigo qof walba wuxuu muraad u leeyahay waxaan ilaahay ugu baryeynaa biidni illaahi kariim inuu muraadkiisa helo kii sharci ah iyo kii arday ah iyo kii doon ahba ilaahay waxaan kaga baryeynaa inuu ilaahay uwad baari ah inuu ilaahay siiyo qof walba oo kasoo qayb qaadatan biidni illaahi waxaan ilaahay mar labaad iyo mar saddexaad ugu baryeynaa inay wax ku farxaan ay helaan insha allah sadaqadana waa mid muhiim ah ilaahayna waxa waaye waa idinku deeqsiin doonaa insha allah haddana waxaan rajaynaynaa wiilkiin maxamed Soomaali xaaladiisa mar walbo inaad ila socon doontaan insha allah ilaahay idin barakeeyo jazaaka allah khayr waa tahay ilaahay idin aqbalo ducadii aabe axmed jeelaani daawadayaal waqtigu aad inoo haya awgeed intaas aynu kusoo gabangabeyneynaa barnaamijkii waxaa inaga xasuusinaa maalinta beri ah axmed jeelaani waxa ay maalinta beri hadduu alla idmo maxamed Soomaali waxa uu ku qoran yahay qalinka oo hadduu alla idmo dhakhtarka ayaa yiri beri ayaan qaleynaa haddii xaaladiisa caafimaad ay fiicnaato intaas aynu kusoo gabangabeyneynaa barnaamijkan oo kale dib hawada u kulmi doono waa aniga iyo aabe axmed jeelaani oo isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo